مسقط ومقالة حيباد مهمة تاسو كترسن خليج كعربتها وحين عاصمة دوها جرتي سلطنة دي عمان وانا مقالوينك ugu qadiimisan gobolka Masqat waa caasimadii xukunka iyo boqortooyadii Cumaan waana magaalo istiraatiiji ah xagga ganacsiga markii la eego waxayna isku xir muhiimsan u tahay labada badood ee khaliij al-Cadan iyo Muxyiid al-Hindi gobolka Masqat waxa uu ka kooban yahay ilaa iyo 6 degmooyin waxayna kala yihiin Masqat Madrax Buushar Asiib العامرات هي قرية marka laga hadlayo dhanka cimilada Masqat waxay ka mid tahay meelaha ugu kulul xilliga jiilaalka waxay gaartaa darajada kulaylka 38 ilaa 40 waxayna ugu daran tahay bisha Yuulyo oo ay gaartaa 40 xilliga xagaagana qabow daran ayaa ka jiro Masqat waa magaalo caan ah waxaana la aasaasay 900 oo sano ka hor waxaa caan ka dhigay dhanka taariikhda nadaafadda iyo wax soo saarka dhanka khudaarta waxay leedahay wadooyin aad u hagaagsan nidaamkoodana uu toosan yahay marka laga fiiriyo dhanka istiraatiijiyadda Masqat waxay ku taalo goob istiraatiiji ah waxayna dhacdaa dhanka koonfureed ee Cumaan waxaa dhanka bari iyo waqooyi bari ka xiga buuro aad u dhaadheer dhanka galbeedna waxaa ka xigo degmada Baadin intaas oo dhan oo la isku soo duubay iyo takada caalami ah ay leedahay Masqat ayaa waxay ka dhigtay magaalo muhiim u ah dhanka ganacsiga iyo isu gudubka koonfurta iyo waqooyi horumarka maanta Cumaan ay tiigsanaysana waxaa asal u ahaa suldaankii la oran jiray Suldaan Qaabus bin Saciid al-Mucdam xilligan casriga ay lagu jiro 1960kii ayay ahayd marka Masqat loo magacaabay inay noqoto caasimadda Cumaan waxaana lagu doortay in caasimadda ay u ahayd saldanadii Cumaan waana magaalooyinka ugu quruxda badan ee ku yaala dalka Cumaan markaad dhex socoto Masqat waxaad arkaysaa suuqyo guryo oo dhammaantoodii ahaa kuwii hore iyo aathaari waxyaabo ka haray dadkii hore kuwaas oo taariikh muhiim u ah caasimadda Masqat ee Cumaan Masqat waa caasimadda Cumaan ee maanta waxay leedahay wadooyin aad u hagaagsan oo jiidasho badan waxaana loo aqoonsaday muddooyin isxigxigo inay noqoto Cumaan caasimadaha ugu nadaafadda badan ee ku yaala khaliijka carabta waxayna dhowr jeer oo isxigxigo ay ku guuleysatay abaalmarinta Masqat waxay uga duwan tahay magaalooyinka kale waxay leedahay muuqaal iyo bilcaad wanaagsan oo soo jiidasho leh dhammaantood waxaad ku arkaysaa aathaartii hore maanta waxaad ku arki karaysaa Masqatka cusub dhismooyin aad u dhaadheer kuwaasoo caadka u dhow intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeeni maanta haddii fikir dheeri aad hayso waad noo soo gudbin karaysaa assalaamu calaykum